magaalada Guriceel ee gobolka Galgaduud ayaa shalay lagu soo bandhigay ciidan fara badan oo loo diyaariyay inay ku biiraan gulufka dhawaan ka bilaabanaya gobolada dhexe ee lagu xoreynayo deegaano ay ugu muhiimsan tahay degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud ayaan warbixintan ku eegaya balse daawade haddii aad soo booqatay boggeena hoggaanka wararka waxaan ka codsanayaa inaad na soo follow gareyso sidoo kaleetana muuqaalkan aad like gareyso kabasi wanaagsan haddii aad u share garay saaxiib adigoo kale waad ku mahadsan tahay la socodkaada beesha Guriceel degan ayaa qabiil ahaan ugu qayb galin wajigii hore dagaalka maadaama aanay al-shabaab dhul badan ka haysan laakiin waxaa muuqata in wajiga labaad la siinayo ahmiyad gaar ah degmada taariikhiga ee Ceelbuur ayaa waqti fog gacanta ugu jirtay al-shabaab kal xukunkii hore madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa mar laga saaray al-shabaab markaas oo ciidanka Itoobiya qayb ay ka ahaayeen duulaanka waxaa la xasuustaa inuu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud markaas tagay Ceelbuur madaxweynaha Soomaaliya ayaa dhawaan saldhig ka dhiganaya magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug hadafkiisu waa inuu al-shabaab ka cirib tiro Galmudug si gaar ah waa inuu Ceelbuur qabtaa wajigii hore dagaalka waxaa al-shabaab laga saaray degmooyin waaweyn laakiin la iskuma gurma doonan sida Ceelbuur dadku waxay isweydiinayaan waxa culayska inta la eeg u yeelay duulaanka Ceelbuur oo xitaa madaxweynihii qaranka u muujinayo ahmiyad intaas leeg waxaa jirta 3 sababood 1 beelaha dagaalkaas siyaasiyiinta ganacsatada saraakiisha iyo hoggaanka dhaqanka ee beelaha degan Ceelbuur iyo nawaaxigeeda ma aanay muujin ka go'naasho weyn oo la xiriirta inay rabaan in al-shabaab ay iska dulqaadaan hal mar oo isku day ay sameeyeen waa ku adkaysan waayeen furinta dagaalka maadaama aanay muujin baahi la mid ah beelaha kale dowladdu waxay ku qasban tahay in iyadu xal gaar ah ay u raadiso deegaanka 2 al-shabaab waxay xooggeeda iskugu geysay Ceelbuur iyo deegaanada ku teedsan sida ay xogo sirdoon xaqiijiyeen waana midda dowladda gulufkan u siinayso ahmiyad gaar ah waxay aaminsan tahay al-shabaab in qabaa'ilka halka degan inay iyagu difaaci doonaan horay beelihii deganaa degmooyinkii laga qabsaday ayaa u diiday inay difaacaan lama yaqaano cidda ku qancisay al-shabaab inay beelahaasi difaacayaan taasoo haddii gunta la aado xaqiiqda aad uga fog waxay dhowr jeer iibiyeen oo ay dadka deegaanadaasi ugu qudubeeyeen in beelo kale ku soo duulayaan dhulkooda iyagoo ka raadinayo cimri dheeraysi laakiin aragtida qabaa'ilka la isku diro hadda suuq badan ma leh dadkuna badi waa ku baraarugsan yihiin dhammaan qorshooyinka cimri dheeraysiga ee al-shabaab 3 aragtida ah in haddii Ceelbuur laga soo saaro aanay ku sii nagaan karin gobolada dhexe dadka arrimaha ammaanka ka faallooda waxay isku raacsan yihiin in haddii al-shabaab laga soo saaro Ceelbuur in aysan ku sii nagaan karin gobolada dhexe waana sabab kale oo ahmiyad ballaaran siinaysa gulufkan uu horkacayo madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud